gudaha dalka Soomaaliya ku soo badanayo isticmaalka aaladaha YouTube-ka iyo TikTok-ga kaasoo isticmaalaan dhalinyaro fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Waxaa sidoo kale soo badanaya sameynta muuqaalo aad ugu xanaajinayo bulshada Soomaaliyeed kaasi oo ay soo bandhigayaan dhalinyaro da'yar ah oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Marka aad arag isticmaalka TikTok-ga iyo YouTube-ka ayaa noqonaya wax caan ka ah gudaha dalka Soomaaliya iyadoo la arkayo dhalinyaro isugu jiro rag iyo dumar oo aad u isticmaala TikTok iyo YouTube-ka. Dadka qaar waxay u isticmaalaan wado wanaagsan, kuwa kalena waxay u isticmaalaan wado xun. Muuqaalkii la yaabka lahaa ee qabsaday baraha bulshada ayaa waxa uu ahaa muuqaal ay sameeyeen lamaana sida lagu sheegay oo loo yaqaano Bashiir America iyo sidoo kale xaaskiisa. Waxaa la arkayay muuqaalkaasi in lagu jilayay waxa loo yaqaano baranki asaga oo inta uu muuqaalka uu bilaabanin sheegaya in uu ku sameynayo xaaskiisa baranki kufsi ah ayaa waxaa daabatay dhalinyaro aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar iyo sidoo kale dad badan oo isugu jira odayaal waxgarad culumo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuqaalkaasi marka ay arkeen bulshada ayaa waxay si weyn ugu falceliyeen habka loo duubo muuqaalkaasi iyadoo sidoo kale dhalinyarada saameyn ballaaran uu ku yeelan karo. Haddaba bal ila daawada muuqaalkan sida loo duubay iyo waxa uu khuseeyo. dareemeyga ka saqalay tidin saa ay tidin مرة يعني برجيك أي عيار قبرني مديد زي دافسين حبيبي أكبر يا مرة أنا كنت على قفاني مرة بلا حوق تجي مكان والله sidoo kale waxaa jira muuqaal qusul badan uu duubay majaajiliisaha caanka ah ninka loo yaqaano Masar Iidaade. Muuqaalkan ayaa la duubay xilli uu Iidaade uu sameynayay barangi aad u qusul badan asaga oo sidoo kale qaarka dambe gabadha ka dharbaaxaya kuna tilmaamaya wax aad ugu xumeynaya bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa muuqaalkan. Asana bal ila daawada waa Iidaade oo ku sameynaya barangi uu gabadha ka taabanayo qaarka dambe. macna dhalasho dhiganaysi saameen fahmi dhalashadaadi yaa la dhigay moogtahay sanadkaaga la ka sii waayay laakiin mid aan kugu nacay hadda koro maya hadda koro xaliimtii kale fay basi aan tababar ma helo waagi oo shonki wariyash ciyaarayeen tababar ma helo saameen fahmi tababar sameen maxay ku leedahay xagga joomo حليمة بانا انت كسوق هذا مشاريو ميسو صوصات مداد ولي عسومي استعمالك برانجيada Soomaaliya ayay aad ugu soo badanayo waayahani dambe waxa la arkaya dhalinyaro rag iyo dumar ah kuwaas oo sameynayo waxyaabaha loo yaqaan kufsiga iyadoo sidoo kale la arkay gabdho sameynaya barangi aad u qusul badan oo ay ku sheegayaan in ay kufsanayaanba nin rag ah. Haddaba daawade adiga ahaan muuqaaladaas sidee baad u aragtaa saameynta uu ku yeelanayo gudaha dalka Soomaaliya iyo dadka jilaya maxaad ugu baaqi lahayd sidoo kale dadkaasi iyaga oo ku raadinayo magac sumcad iyo maamuus halka dadka qaar ay ku dhiirigeliyaan in ay muuqaaladaas ay soo badayaan kuwa kalena ay ka falceliyaan iyaga oo sheegaya in ay muuqaaladan ay yihiin wax aad u xun. Marka la arka barangiyada oo aynkaas oo kale ayaa waxa lagu sameeyaa gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo baryihii ugu dambeeyay wala arkayo barangiyo aynba ayn ah oo ay sameynayaan qaar kamid ah dhalinyarada isticmaasha aaladaha YouTube-ka iyo TikTok-ga kaasi oo ay ku doonayaan inay ku yeeshtaan jamaahiir aad u fara badan iyaga oo u arko in ay ku saxan yihiin balse diinteena suuban waxay leedahay wixii xun ka fogaada wixii wanaagsan hala sameeyo. Haddaba daawade muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro si share garay halkan waa Bandhiga TV aad ayaad ugu mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka iyo daawashada barnaamijka iyo sida aad u share garaysaan mahadsanadiin ayaan idin leenahay.